xilli loo ballansan yahay in lagu kala adkaado shirgudoonka golaha wakiilada somaliland 6 caanamal kadib ayaa la xaqiijinayaa in sayladda kala iibsiga mudanayaashu xaami noqotay dilaaliinta iyo malaaliinta gacanta sare wax ku gooya ayaa dhuuhaynaya waabaha iyo cabuuraha la isugu yimaado dhowr dooro labale oo Hargeysa ku yaala ayay ka dab qaataan dhowr ganacsade dar wadaado la yidhi iyo shirkado gaar loo leeyahay kuwaasi oo dhammaantood u afraadinaynaya sidii ay u mahoobi lahaayeen gudoomiyaha golaha wakiilada docda kale siyaasiyiin gooni daaqa oo dhawaanahan baayida iyo jaqin-siqisyada miranayay ayaa iyana dhexboodaya sida ay ugu biirin lahaayeen itaal kastaba ha lahaatee inkastoo xukuumadda madaxweyne biixi lagu eedeeyay inay laaluush ku bixinayso iibka xildhibaanada sida uu masaajid Hargeysa ku yaala kaga diminjaaqay sheekh xildhibaan noqday oo ka soo baxay xisbiga wadani haddana hore waxay dadku ugu eedeyn jireen xukuumadda madaxweyne biixi gaar ahaan muuse biixi cabdi inuu yahay handaraab oo aanay isgaadhin jeebkiisa iyo gacantiisu haddana warka wadaadka ka soo yeedhay ayaa noqonaya hal bacaad lagu lisay malaayiin bay maraysaa laaluushkii in la iibsado aswaad in cod la iibsado in lagu dhiso baarlamaankeenii iyo deegaanadeennii xaaraan xildhibaan cabdiqaadir indho ayaa dhowr habeen ka hor ka sheegay magaalada Hargeysa in muuse biixiyey handaraab ninkii bowlad shilin dhururi iyo caanteen ka soo helayaana uu doonto horta may aragteen anigoo la saleebaan golaha naga hel oo handaraabka meesha ka fog u tag ninkanoo hadda nabadgelyaanu ka hadlayna maalinta ninkii isla lacag buu muuse bixiyaayo ilaahay ha kaa soo siiyo oo soo arki waxa laga yaabaa in caawo ciidamada qaranka uu beebeeyay uu iibiyo hadday suuragal noqoto in intiinani haddaa u tagtaan oo tirahdaan iskuulla noo dhiso idiin dhiso laakiin iga walaan $20 xisbiyada mucaaradka gaar ahaana isbahaysi dhowaan isla baxdoobay ayaa la sheegaya inay habeen iyo maalinba kadaaliyayaan oo aanay ka fadhiisan oo ka joogin sidii ay baryo iyo bowladkay doontaba ha ahaatee u heli lahaayeen 42 xildhibaan oo udba ku qaada siyaasi cabdirasaaq khaliif axmed oo isbahaysigii tuurta ku qasoo qaatay ay la doonayaan inuu iska madoobeeyo wambarka gudoomiyaha wakiilada baxaadega taaha jalaadka iyo nafka dhowrnimada kuleelka sakaraadka ee uu keenay kursigani ayaad ogtihiin daawada inuu ula galay siyaasi cabdirasaaq khaliif macalinkiisa siyaasadda laba kale wax laga joogo ayuu dudada guriga madaxweyne hore Silaanyo iska hormadoobeeyay si uu bal ilaan waa la yiraahdaa ay ciidan iyo cudud uga heli lahaa balse waxaa la sheegay inay halka kaga soo baxday su'aalo laga weydiiyay afgambigii lagu ridi gaaray xukuumaddii xilligaasi ee madaxweyne Silaanyo shirkado ganacsi oo qaarkood baasiin keenaan ayaa faraqa furay kuwaasi oo waxba ku waayay sida la tibaaxay shilimadii la qubayay dagaalkii siyaasadda ee doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo kan xukuumadda ee kulmiye ayaa soo dhaafi waayay dhowr duqayda degmooyinka dalka ah kadib markii isbahaysiga u cudiyay wadani ay kaga adkaadeen xisbiga xukuumadda firigta iyo cagabidyoodka labada xisbi ee isbahaysiga ayaa la sheegay inaanay soo dhaafi doonin maayarada dhowr magaalo ay ku guuleysteen sida ugoga margoogta internetka ee Facebook ku soo xarxariiqay boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow boqorka ayaa biniixiyay in shirgudoonka golaha wakiilada ay hantii doonto xukuumadda madaxweyne biixi balse ay xisbiyadu iimaansadaan maayarada degmooyinka ay duldhigeen Italiya awood waxay hayeen 11 xildhibaan oo ka soo dusay muskanadayda ka dhigay oo u soo galay xukuumadda kuwaasi oo calanka u siday siyaasiga cabqariga ah Maxamuud Cali Hayste Ramaax ayaa ku guruur beelay dhinacan iyo xisbiga kulmiye tan ayaa timi markii xisbiga u cid oo jeebka dambe ugu jira Faysal Cali Waraabe ay isla soo galuubeen inay caydiyeen rag ka tirsanaa golaha dhexe xisbigaasi siyaasi Maxamuud Cali Hayste Ramaax oo ka hadlayay madal bawda oo ilyartu isqabatay ayaa dhayda ka cadeeyay wuxuu ku taageeray Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon Ramaax oo aan xilliga ka labalabayn isla jeerkaasna hadalka isaga taagin ayaa daboolka ka qaaday inaan siyaasi cabdirasaaq khaliif ku haboonayn gudoonka golaha wakiilada maadaama aanu ahayn xisbiga wadani ee uu ka fog yahay kana tirsan yahay ururo aanu cadayn runtii marka basiirka ummadda laga hadlayana dee maaha inaan nin nacbaysi iyo nin jeclaysi iyo mucaarid baa tahay inaan ku galo maahee waxa weeyaan markaanu eegnay labada musharax ee
midna uu soo jeediyey xisbiga kulmiye midna uu dhisayo xisbiga waddani waxaan u aragnay cidda dalka maanta hogaamin kartaa lagu aamini karaa inuu yahay guddoomiyaha maanta hortayda fadhiyaal iska dhexeen laakiin annagu xogogaal baanu wax badan baan ognahay waxaan qabaa aaminsanahay ummadda reer somaliland u faahfaahin doonaa waxyaabahaanu cabdirasaaq ku diidanahay xataa ma hubo inuu waddani yahay waxaan u aqaanaa anuu kolley xusbi afraad inay yihiin ayaan kooxdaa u aqaan ururka al-ictisaam oo ay isku urursadeen wadaaddo dhowr kana mid ahaa duulkii shilimada daba siday tirada 30 xildhibaan oo ay u toogahayeen inay uga soo baxaan golaha wakiilada ayaa afka ciidda daray taasi oo dhicisowday kadib markii 8 xubnood dirqi iyo tubaas ku soo gudbeen waxaana la bidiixinayaa iminka inay daba ambuulan yihiin murashaxa ay wataan qolyaha isbahaysiga ee cudiya waddani gudoomiyaha xisbiga oo duulka wararka la orda u dibinjaaqay ayaa dhaariyo xilafuro ku maray inaan xildhibaanada isu dhigay inay taageeraan murashax faratoon ay dibnaha qaniini doonaan isla jeerkaasna uu xisbiga u cid gacan wax kaga wanaajin doono lama sheegin qodobada uu cuskan doono Faysal Cali Waraabe maadaama horeba loogu soo joogay markii ay ciriida kaga dhaqaaqeen maayirada degmooyinka Berbera iyo Gabiley kuwaas oo ilaa hadda baaqi ku ah xisbiga haya talada Somaliland ee kulmiye si kastaba ha ahaatee waxaad ogeydeen markii madaxweyne biixi uu sheegay inuu garab geli doono saaxiibkii faratoon si uu u noqdo gudoomiyaha hogaamiye 82 mudan ee Somaliland isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ayaa hal cad laga kaxaystay dhowr iyo 10 xildhibaantiyo dhinaca kale xisbiga kulmiye ragga metelaya noqdeen budo gaaru tuman oo aan mid laga sii jeedin ifafaalaha muuqda wuxuu tibaaxayaa in saxalku la socdo xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon kaasoo ku naaloonaya wax guulu eg kana dheer guuldaro maadaama ay xerada ugu jiraan tiro gaadhaysa 46 xildhibaan oo mulbisa madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dhaqankiisu ma aha inuu bixiyo laaluus balse waxaa cad in isbahaysiga mucaaradku ay bixinayaan lacag ka timi meelo dibadda ah sida dowladda Soomaaliya iyo ururo caalami ah kuwaas oo ka soo horjeeda jiritaanka Somaliland iyo madaxbannaanida qaranka sidaa darteed olahda ay faafinayaan isbahaysiga mucaaradka ee oranaysa dowladda lacag bixinaysa waa mid lagu qarinayo ceebta mucaaradka dul hoganaysa ee inay dhaqaale ka helaan meelo cadawga Somaliland sidan waxaa Google margoogta Facebook ku soo qoray Axmed Maxamed Aadan oo ka mid ah dhalinyarada Facebook oo wax ku qorta daawadeyntaasiin ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena gaarka aynu kaga hadlaynay shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland waxaan idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo